Salaamullaahi calaykum dhammaan asxaabta ku xiran iskuulka Barbaaray Online. Barbaaray Online wuxuu idin bilaabayaa kooraskii cusbaa ee Ingiriiska ah, kooraskaasoo aynu ugu magac darnay Basic English Course, taasoo macnaheedu yahay barashada aas-aaska luqadda Ingiriiska. Waxaynu aas-aaska laga bilaabin oogada sare kama adkaadan, sidaa daraaddeed waxaynu garanay inaan ardayga marka koowaad aan barno aas-aaska koowaad ee luqadda Ingiriiska ah. Waxaynu qaadanaynaa maanta lesson 1 casharkeena koowaad. Casharkeena koowaad waxaynu ku qaadan doonaa xuruufta alifbeetada Ingiriiska, kuwaasoo tiradooda ay tahay 26 English alphabetics, ama kuwaasoo tiradooda la dhihi karo 26 xarfood ee xuruufta alifbeetada Ingiriiska, kuwaasoo aynu u kala qaybino sidaad horteena ka aragtaanba 5 vowels 5 shaqal ah, 21 consonants iyo 21 shibanayaal. Wadarta guud marka la isku daro waxay noqonayaan sidaan kor ku soo sheegnaba 26 English alphabetics, ama 26 xarfood ee xuruufta alifbeetada Ingiriiska ah. 26 xarfood ee xuruufta English alphabetics ama xarfaha luqadda Ingiriiska 26 xarfooda waxaynu u kala qaybin laba qaybood oo kala ah capital letters iyo small letters. Capital letters waa qaybta waaweyn, halka small letters ay ka tahay qaybta yaryar. Waxaynu ku hormaraynaa capital letters oo ah barashada xuruufta waaweyn qaabka loo qoro. Xuruuftan waaweyn waxaynu arday kasta ugu kor qornay dhawaaqa xaraf kasta isagoo af Soomaali ah, si uu goob kasta iyo gurigiisa isagoo ugu akhristo ula socdo. Sidoo kale qaybta kaleente ee small letterska ah iyaga uma baahna in dhawaaq lagu qoro, maadaama qaybta kale aynu ku soo aragnay dhawaaqii. Sidoo kale sidaa daraaddeed xarfahan alifbeetada ee 26 xarfooda waxaynu sameynay inaan erey kasta oo alifbeetada xuruufta Ingiriiska ah oo 26 xarfood aan ka sameyno ereygaas anagu talagalna ardayga inuu ku dhisto in uu jiro erey xaraf kasta oo 26 xarfood alifbeetada ah ka bilaabana xarafka A for apple. Apple waxaa loo yaqaanaa ereyga la yiraahdo tufaaxa. B for book. Book waa buugga ardayga wax ku barto. C for cat. Cat waxaa loo yaqaanaa bisada ama yarada ama yaanyuurta xaafadaha inta badan laga helo. D for dog. Dog waxaa loo yaqaanaa eeyga. E for egg. Egg waxaa loo yaqaanaa iyadana sidoo kale ukunta. F for fun. Fun waa marwaxada ama taageeraha ayaa loo yaqaanaa inta badan, taageeraha kubadda cagta ama taageeraha xisbiyada waxaas taageero inta badan oo loo isticmaalaa funness iyadoo la yiraahdo. G for green. Green waa midab ka mid ah midabada la isticmaalo oo cagaar loo yaqaano. H for hyena. Hyena waa waraabaha ama dhurwayga. I for injury. Injury waa dhaawac ama dhibaatada qofka jirkiisa soo gaarta. J for John. John waa ku biirid ama koox lagu biirayo ama iskuul lagu biirayo. Weli waxaynu sii soconaa xuruuftii alifbeetada ahayd xarfihii ka bilaabanayay si aan xaraf xaraf ugu barno ardayda. K for kettle. Kettle waa kirliga ama jalmad wax lagu shaaha iyo wax lagu karsado. L for lion. Lion waa libaaxa, waa nooc ka mid ah xayawaanaadka. M for man. Man waa nin. N for nurse. Nurse waa kalkaaliso ama kalkaaliye caafimaad, waxaad u taqaanaanba. O for X. Ox waxaa loo yaqaanaa dibiga. B for pen. Pen waa qalinka ardayda ay wax ku qoraan xilliga goobaha waxbarashada ay joogaan. Q. Q waxaan u soo qaadanay for queen. Queen waa boqoradda, waa boqorad. R for ruler. Ruler waxaa loo yaqaanaa mastarada wax lagu toosiyo xilliga wax la qorayo. S for student. Student waa arday. T for table. Table waa miiska ardayga uu ku fadhiisto xilliga goobaha waxbarashada oo joogo. Weli waxaynu sii wadnaa xuruuftii alifbeetada luqadda Ingiriiska ah xarfihii ka bilaabana. U for umbrella. Umbrella waa dallada. Dalladana waxaynu ku isticmaalnaa inaynu ku hugsanno qorraxda ama biyaha roobka. V for voice. Voice waa codka sidoo kaleento. W for woman. Woman waa naagta sidoo kale ama naag ayaan u naqaanaa. X. X for xenophobia. Ereygaas wuxuu ka bilaabanayaa X, laakiin dhawaaqiisa wuxuu ka mid yahay ereyada maldahan marka lagu dhawaaqayo, sida ST ayaa lagu dhawaaqaya. Waxaan leenahay xenophobia. Xenophobia waxaa loo yaqaanaa nacaybka ama waxyaabaha qofka uu necab yahay kale ayaa loo yaqaanaa. Y for yesterday.
yeast waa khamiirka ama waxyaabaha bakteeriyada ay ka dhalato oo wasakhda sidoo kale. erayga ugu dambeeya ama xarafka ugu dambeeya ee xuruufta 26 English alphabetics ama 26 xarfood ee xuruufta Englishka ah waa Z. Z for zebra. Zebra waxaan u naqaanaa dameer farowga sidoo kale. mahadsanediin, la socod wanaagsan casharkan casharada xigo. si aad uga bogataan fadlan soo booqo page-kan insha Allah. waa mahadsantiin. Thanks.